kaymahaas Soomaaliyeed waa kaymo gacanta lagu sameeyay kaymo iska baxay oo dhulka ka soo baxay caadi ma aha laakiin dhulka lagu sameeyay markii lagu sameeyayna waa ku baxeen soo ilaahay wuxuu yiri adinku wax qabsada wax sameeysta markaas baan ficilka idinku daraaya anaka ficil iyo sameyn iska daay kii caadi dhulka uga soo baxay anta qaadanaan gubnaa oo dhameynaa kabacdi waxaan dhahnaa anaga reehebela anaga cirka dhulka u jirna anaga libaaxsan ka taabana anaga kan awooween yahay awoogaa kaymaan ma sameyn jira dhulka wax ma ku soo kordhiyay cirku ma waca marnaa wuxuu qaban jira awoogaa waa ku faantide anaa reer hebel walaan dheeraa dhahdeed maxaa qabsata maxaa adduunka ku soo kordhisay waxna xabadna dhulkaas adduunkaas waxyaalahaas quruxda badan oo wax gacanta lagu sameeyay ma fahanteen ummadaas samaysatay annagana alla waxaan qabsanaynaa mal wax kastana ilaahan ka sugnaa ilaahayow noo yeel ilaahayow noo keen xabadda iyagoo gacanta ku wada waxay ku leeyihiin ilaahow nabadna sii nabad intay ka imaaheen ilaahay ma malaa'igow keenaya ma keenayo waayo wuu awooda laakiin ma keenayo ilaahay roobna sii ilaahow dhulka barwaaqa nooga dhig ka dhiga adugu dadkaas aad u jeeda dhulka see greenka soo ka dhigay ka bacdina ilaahay waa kaasa wax kasta dhulku rido wax kasta dhulka dhigtid ilaaga ficil qaado ka bacdi waa kugu kabayaa ku yiri yaa Soomaaliyeed dhulkaas kaynta iyo dhulka naga ma aaminaysin dhul ma balihiin dhul la dhul hadaan leenahay waa ku xisaabtami lahayna ma aanan bili aadan ma aanan ka door bidnaan يا والله بالله تلاعيل سكا قبناي على الحمام مودي متى عيل مودي متى dadku waxa sameystay raga dayaxa saansaday yaa saakaymo ka dhigay dhulka gacanta uga dhigeen ma aqbalaysin waxay ku hadleen maanta naagtan saa gacanta looga dhigay leedihiin waxa u jeedin gacanta lagu sameeyay yaa ma aqbalaysin laakiin Soomaali Maryoole yaa leedin dhaha muranka iyo xasidnimada iyo waxa ka heshiin iyo bakhtiga iyo sida brown washka madaxa qofka looga dilo looga dhigo ayagu isu dilaan ayagu brown wash isugu sameeyaan bas ka saysiin waxa soo kordhinaysiin waxa keenaysiin wax leen ka faa'iidayo ma jirto qabiil qoys baaba balaayo waxaan jirin la ilaaha illa allah muhammad rasuul ilaahay oo ummad dhan saastig aan ka dhalanay waxaan sameeyna ma naqaane law adigu noo micin waa noo micin kartaa kulay jiilkayga iyo jiilka dambe ma u malaynayo sababtu waxaan arkay social media ugu jira dadka arkay social media ugu jira dadka arkay indhaw ma fahanteen naga reebala anaga fitriga dheesho anaga libaaxsan ka taabta waa qof fitridiisa bannaan tahay waa qof ceyrku nool waa qof dawlad kale miciinsanayo waa qof aan nolol haysan la ilaaha wallaahi billaahi tallah marka bili aadankaaba ilaahay wuxuu isdheeraysiiyey waxbuu isdheeraysiiyey ilaahay bili aadan anigu Soomaali ma aqaano waxa ilaahay ka dhigi rabay waxa uu ka dhigay kolay ma waa arkaa waxa uu ka dhigay qiimo xumadooda cari igu abuuraan markaan u fiirsado yaa dadkaas yaa dadkaas waa kaasa ma sha Allah ma garateen marka
wax laga sheekay karo iyo wax laga qaban karo midna ma jirto. xabad lagama qaban karo, ma fahante. wakaasa waa dad saas wax u samaystay. kayn barwaaqo guri dhulkay gaalada dhulka muslimka aawe dhulka muslimka samhariira meel indha wax ay qabsanayaan jirin, uftada dab iska gelinayaan, ayuu isgubayaan, ayuu isbaabi'inayaan. inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. yaa allah waxaan ku sheegna ma naqaan wallaahi billaah. bal ka sheekay idinku meeshan ma magaala mase waa kayn? yaa maxaad isleedihiin? magaalo kayn ah wasaa gacmaha loogu sameeyey kabacdina ilaahay uu bixiye. ilaan beerta markaa falatid kabacdi ilaahay wax ka soo bixiyaa soo ma? ayagana waa kaasa dhulka saas intay u saareen dhirtii ay kayn ka dhigeen, ay ilaaliyeen, ay xanaaneeyeen. ka sheekeen wallaahi billaah tallah. annakana meel ba'day, meel qashin yaallo, meel afka faafu maroorsan yahay oo moodikirli dhinac looga istaagay, meel hoogtoo ba'day, meel gabaahiriin, meel la isku dilaayo, meel ayagoo futadooda bannaanta waxay haystaan la argo baahi u dhinto silicsanoo saxariirsan ee isdilayaan, ee isu faanayaan. wax ay ku faanayaan hayaan ma taqaanin. yaa mid kasta oo faanaan cid islaameedow iyo dowlad islaameedow gurigeeda fadhiya kabacdina baran waasho ilmihii soo koraayay oo ku sameynaa markaas si iyagu yeelayaan isaguna yeelaa. horta wax rajaa oo Soomaali leedahay oo mustaqbal ah oo kulli ii muuqdo ma jirto. kab hoog iyo galangal kii wadan islaamiyeedka xataa kama faa'iidi karo, aqli uguma faa'iidi karo, aqoon uguma faa'iidi karo, wax oo soo kordhinayo malaha. caayi bilaayo qabiil dulli shaydaan wax daran soo kordhiya markay wax soo kordhinayaan. marka waa reer ba'ow yaa kula haaday, reer ba'ow yaa kula haaday. marka waa reer ba'ow yaa kula haaday wallaahi billaah. reer ba'ow yaa kula haaday. ka sheekay kaymaha magaalaha saas kayn u ah waa magaalo. yaa maxaa laga qaban karaa? waxba lagama qaban karo. yaa wax laga qaban karo ma jirto. marka Soomaaliye walaalayaalo sidaan ma isu dhaanaa, sidaan ma iska bedelnaa, mase waan qasanaa. ay mare bal ra'yi igu soo kordhiya, bal wax ii soo sheega, bal wax uun aan idinka faa'iido walaalayaalo, wax uun aan ka faa'iido. haddaa wax ii haysiin igula soo wadaaga meeshaan. anuguna bal wixii qurxoon oo indhaha u roon si aad u fiirsatiin iska fiirsada. youtube aadaa kaliibkan shaarka iyo leegta iska soo saara. qabyaaladda iyo qurunkaba waa soo saartaan, waa soo sheergaraysaan balaayada madow. bal waxaan inta fiirsatiin oo indhaha ku nuursatiin oo qalbiga u sheegtiin bal like iyo share iyo comment waxay ii haysiin igula soo wadaaga. ma fahanteen walaalayaalow? Soomaali maryooleeyay kale cid kale ma hayee ilaahay ba iga kiin dhigay meel aan ka aadana ma aqaane. bal igula soo wadaaga ra'yigiina, bal igula soo wadaaga. yaa bal ilmaha yaryar oo dambe jiilalka dambe bal inay cayntaan oo wax qurxoon fiirsadaan oo wadankii wax qurxoon ka soo gudbisaan oo wadamada tagteen ka soo gudbisaan. uma soo gudbinayo kaliibkan inaan ummadii iyo dadkii dhalinyaradii joogtay aan leeyahay wadanku saan u qurxoon ugu faana, laakiin xaqiiqda jirtaan ka sheegayaa. wadankanagan ka dhigan karnaa kala jeedaa, wadankeena saas laga dhigi karaa kala jeedaa. wadankeena ka qurux badan, wadankeena ka bacrinsan, wadankeena wax ka soo saar fiican. wax ay haystaan male saasina kayn iyo adduunyo iyo qalab iyo wax kasta isu saarteen. marka walaalayaalo
bal igula soo wadaaga wixii talo iyo tusaale ah haysiin bal igula soo wadaaga meeshaan yaa igula soo wadaaga talo iyo tusaalo wixii ra'yiga bal igula soo wadaaga wixii san oo fiican oo khayr leh ilaahay bay ka ahaadeen wixii xunna shaydaanay ka ahaadeen aniga ma rabo oo xun iyo kelmad xun afkayga inay ka soo baxdo yaa ma u baahni youtube-kaas muuqaalkayga waxaan la soo geli la'a oo aan hadalkayga maahane muuqaalkayga u keeni la'a ummadaas waala waxaan isleeyahay ay ku xagxagtaan inaan laga fakeyn waa ogay habeen awdu billah ilaahu shartoodan ka magan gala ilaahu shartoodii shar kale iga magan gali ilaahu afkayga wax xun ha ka keenin wax san ka soo bixi anuguna waa ku talagalaa ilaahay wixii aad ka bariso iyo wixii ficil aad sameeydo ayaa iswaafaqa ma fahanta meelaan yuursana waana caytama waxaan sameeyaa ma suuroobayso laakiin wax wanaaga aan sameynaa waxbaan bedelaa ilaahay waa kula tawagalaa markaas ilaahay waa la tawageli kartaa laakiin wax kasta la sameeyo ilaahay ka ahaato lama dhaho mana ka ahaanin wixii fiicana ilaahay ka ahaado wixii xunna shaydaanay ka ahaadeen ma garataan ikhyaare asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nagu kala wada